noloshu way qurux badan tahay ku raaxayso waa hadiyad qaali ah ka murugoon shalay waayo waa la soo dhaafay ninka wali barito waayo wali lama gaadhin ka fakar maanta kana dhiga maalin qurux badan in laga murugoodo wixii tagay waqtiga ayuu ka qasaarinaya wixii tagay waa taariikh ma tirtiri kartid waxna kama bedeli kartid waxay ahaayeen wax ku qoran sababayna ku dhaceen iskeela wixii aad soo martay wixii ku dhaawacay wixii ku dhibaateeyay shaqaad weyday guri ka gubtay xiriir jacayl ama mid saaxiibtinimo oo ka xumaaday ninka tagay haweeney ku khiyaantay dhammaan iskeelo sababtoo ama soo celin kartid waa ay dhamaadeen qofka maanta dhan ka murugoonaya wixii tagay waa qof raba inuu ilmaha la dhalay ku celiyo caloosha hooyada leento hintan uu ku celiyo isha maalintiina uu ku celiyo habeen la soo dhaafay suurtagal ma aan hadda kuna raaxayso iskanayla wixii tagay waa tageene Soomaaliduna waxay ku mahmaadaan wixii tagay teegsi male fikirka way fiicnaan lahayd haddii aan saas samayn lahaa iyo maxaan saas u sameeyay kuma caawinaysaa way ku mashquulinaysaa waa inaad kala doorataa inaad hore u socoto oo aad nolol cusub bilowdo iyo inaad ku noolaato xasuusaha wixii aad soo martay iyo ka sheekaynta taariikhda tagtay taasi waa go'aan adiga kaliya taad gaadhi karto marmana gacantaada ku baabin noloshaada waxaad u baahan tahay inaad bilowdo nolol cusub ka bilow meesha aad joogto ku bilow waxaad haysato waxaad u baahan tahay inaad maskaxdaada ka masaxdo maalmo mugdi aad soo martay si aad ugu diyaariso maalmo nuur badan waxaad u baahan tahay inaad nafta ku mashquuliso wax khayr ku ah waxdani kuugu jirto wax horumar ku horseedi kara waxaad u baahan tahay inaad nafta ka ilaaliso faraaqa badan iyo caajiska anay loobin waxa soo socda ayaa ka wanaagsan wixii tagay marnamana hay loobin casharka aad ka bartay shalay saysa mar kale kuugu dhicin ka murugoon wixii tagay adduunyo sababtoo ah la ayaa xikmadiisa kugu siiyay intaad haysatid dheh alxamdulillaah nolow hadda sababtoo ah nolosha dhabta ah waa hadda xilliga aad nooshahay xilligan aad muuqaalkan daawanayso lagama yaabo inaad noloshaada ku raaxaysato haddii aad ku murugoonayso wixii tagay ama aad ka fikrayso waxa soo socda waxaad nafsadaada u sheegtaa inaad hadda nooshahay oo maanta kaliya aad haysatid hadda u dadaal salaada quraan akhriska sadaqada iyo dhammaan wax kasta oo Alle jecel yahay kuna qurxi maalintaada jacayl naxariis iyo dhoola cadayn qurux badan ugu noolow maalintaada sidii iyadoo maalintii kuugu dambeysay noloshaada maalin kasta oo soo marta waa maalin qurux badan ee ka faa'iideyso intaysan ku dhaafin sababtoo ah ma soo laabanayso mar kale wixii tagay wax xasuus ku jirta maskaxdaada oo haddii la soo dhaafay ma aan wax la taaban karo sidoo kale ma ahan waxa soo socda waa sawir kaliya ta maskaxdaada oo ku riyoonayso isaguna ma ahan wax la taaban karo oo xaqiiqa waxa kaliya taad haysatid waa maanta waa saacadan waa daqiiqadan waa hadda ayaad maamuli kartaa hadda si fiican uga faa'iideyso waxaad haysataa hadhow xasuus qurux badan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri hadii aad waabariisato sugin galabtii hadii aad galabaysatidna sugin subaxdii ka walwalin in badan waxa ka maqan mustaqbalka Allah ayaa garanaya wixii dhici doone xooga saar inaad wanaajiso maanta iyo waxaad haysato ka horumari maalmaha ma waxaad rabtaa inaad cunto tufaaxan soo bixin berito maahan wax la taaban karo xaqiiqa marka maxaad uga murugoonaysaa maalin inay quruxdeeduba soo bixin ka murugoon waxa soo socda ee aad ogay inaad noolaanayso iyo in kale tada rabbiga u dhiibo xasuusayn cidna u diidi karin waxa lagu qoray wanaag iyo xumaanba nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri ummadda oo dhan isugu tagto inay wax ku tarto waxba ku tari maayaan waxa lagu qori maahaane haddii ay isugu tagto inay dib ku gaarsiiyaan kuma gaarsiin karaan waayo waxa lagu qori maahaane ogow inay sanafino dunidani ka tagayn ilaa ay ka dhamaysato wixii Alle u qoray haddii ay tahay risqi hanti caafimaad caruur lamaana iyo nolol wanaagsan mustaqbalkaaga waxay gacanta ugu jirtaa rabbigaaga oo xaaladaada waa uu ku naxariistay xilli uu ku abuuray adduunka ayaa uu ku keenay wax kastoo dunida ka jira adiga ayaa uu ku abuuray nimco kastoo hadda adeegsated isaga ayaa ku siiyay marka Soomahan in rabbi markasta agtiisa ka sugto mustaqbalkaaga wanaagsan Alle waxa uu jecel yahay kuwa tala saarta intani ku eegi doona muuqaalkeena maanta muuqaalkan ku xiiso galiya naga ilaahay inuu muuqaalka noo like gareyso noo subscribe noo saarto. Assalaamu calaykum.